adduunkii nagaydinkiiyo naagaha rogay nairobi iyo xamar horaad nag uga siiseen noodkaa xun iyo gaaladaad nebiye moodeen dhulbahantaa naflaha kugu xiga nolol la kaa waaye nacallaa majeerteen ku yaal nolol ma haystaan buu ilaahay suu abuuray majeerteen fidmay la wareegay waa fidmo walayaal majeerteen oo dhan baa fidmo walayaal ma kala reebayno qaar baa ku dhigay maxamed saleebaan madaxweynihii hore ninkii ku dilay boosaaso laascaanood iyagu ah dawladdii Soomaaliya ee محمد سياد بري الله ونعرسته وحي حبت كل هذا إيجا وهري وانما ورقود في الماء وضع السجوا وحديديا مدحويني الصومالي فدرالك متعلمك إيه الرئيس الوزاري الدولة الصومالي وديدين سيدا دارتاد وما أكون سني مدحوينا النجوم في دم أوجي ومادة الصومالي وده الشركة ده بلا يكون صوت طيب الوصول نحطه ريبان وارد تني فضيحه وليبا واعب وليبا واللياب وليبا وامكان وليبا waxaa laga galay dad waxaa laga galay bulsho waxaa laga galay qowmiyad waxaa galay dad sheeganaya isimo dhaqan iyo wax garad inay yihiin waliba isimo kala duwan madaxdii ogaadeen inay yihiin dadku siyaasad waa isku qabtaa qof waa qaldami karaa wuxuu raba waa dhihi karaa laakiin in qabiil weyn oo ballaaran oo culimo leh oo caamo leh oo mooryaan leh oo siyaasi leh oo ism leh oo wax garad leh sidaan loogu gafo xaasha lillah xaasha lil ceeb weeye waliba ceebtu waa kala duwan tahay waa mid aan weligeed hari doonin waa mid dhigaala oo taariikhda gashay in ism Soomaaliyeed in nin sheeganaya ugaaska guud ee beesha ogaadeen إني شجعنا يوجاس كجبلان أنت سافرستان كلمتها النوع عنا دلغاف كله حمات له جرال لا أنت أصحيبك أي ردان وعيب وأنا فضيح وردد وحال يري أرت ضد كان يري هذا داراتك لبضع قبيلة السياسة ده بإسكويسة ومركز تشارك تقول حياله وأن منك اللي يري هذا مجرتني مرحان haddana sidaas oo ay tahay waqtiyo badan bay soo wada jaxartabeen maxamed siyaad barhaan ogeyn ninka Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku sameeyay markuu tirinayay gabaygii ahaa hawiye meelu joogaba dagaal waa iska maanaca maankooda waa ka jiray ragnimaad meel ka soo gali unsaas hebel baa ka dhigay maata caana leh Cabdullaahi Yuusuf markii maxamed siyaad barhaan markii u jeedeen waa la soo arkay markii laga soo rogmaday oo haddana jeerteen ay lahaayeen hadii laba libaax xilib dhex mar waa isku marantaa admacaanka iyo kurska waa la isku maagaa misna waxa yeeshiyeen markuu hebel u muuqdo ayadana waa la soo arka waa laga soo gudbay farmaajo la ogeyn sidii lagu dhaganaa oo siyaasiyiinta ma garanaysaa reer Puntland ay ugu dhaganaayeen baadana ogeyn waa laga soo gudbay maantana waa sidii haddana sidaas oo ay tahay lama arag lamana maqal ugaas beel ama ugaas qabiil oo inta soo fariista ama ism qabiil inta soo fariista hadallada noocaan oo kala ku qowla ugaas marxaan baan ku qowlin ugaas ma jeerteen kuma qowlin waliba dadkii wax loo geysanay marxaan bay ahaayeen markasta lagu dhaganaa haddana sidaas oo ay tahay isma dareensiin jirin afkooda ma kala qaadi jirin de waxay ogyihiin wuxuu inay siyaasad yihiin maalina ay ayagu fuushan yihiin maalina ma jeerteen ay fuushan yihiin waxa meeshan la isku hayana ay tahay siyaasada wax qabiil lagu kala geeyay iyo wax dhibaato la isku sameeyay iyo waxa la isku caayay iyo wax ism u soo fariistay mid aynaysan jirin bay labada ogyihiin ibtila waxay ka taagneed waliba ceeb waxay ka taagneed markii ay diidirir oo meeg u qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu yiri kaxiib u dhashay ma aha nin ogaadeen ka tirsan ma aha nin ma garanaysaa daarood matala asagii oo aan hadlin iyo siyaasi kale oo aan jawaabin baa waxa soo fariistay media dhaqankii ogaadeen kuwii ugu sareeya soo fariistay kaasay waxay ku qowleen hadaladan kaasay waxay yiraahdeen hadaladan xaasha lillah mar raba anay ogaadeen in uu gafo ma jirteen inuu gafo laakiin waa laba tol oo walaala oo wada dhashay oo ilma kabla la xisl ah waliba marxaan ay ma jirteen ayaga iskaga dhow waayo ayagu waa isku jiifay hoosaba laakiin waxa la yaab ugu noqotay aniga ma taqaana nin oday oo ugaas sheegan inuu aragada noocaan kale ku qowlo waliba ma jirteen qaabka noocaan oo kala ah oo ula hadlo war ma jirteen meeshan ma joogee waa nin Saciid Cabdullaahi Dini la yiraahdo oo siyaasiye jirteen meeshan ma joogee waa rag siyaasiyiin oo kooban كان حتى أشغلني عيدي الدروة سياسي أو سعيد عبد الله الدين بالسياسي وياه هذا السيد أصو أي تهاي وحقف كأجيستي
oo hadalka noocaas geystay siyaasi buu ahaa warfaafin u qaabilsan Puntland marka odayaasha waxaan kula talin lahaa in hadalka noocaan ay deeqaafka ah oo aad u geysateen qabiilka iyo qowmiyadda iyo maamulka Puntland oo dhanba iyo beesha Majeerteenba aad xal marin ka bixisaan soo fariistaan mar labaad aad tiraataan xaasha lillah waa naga dhaca binaadamku waa qaldamaa qofkan waxaan qaldamin waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waana la laabtaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa loo toobad keenaa si lamada dadka waa loo toobad keenaa ma garanaysaa wixii ka dhacay waa laga daba tagaa hadalkan ma aan hadal saqiran aniga xataa ay diidir hadalkii uu lahaa waxa kala soo qaado waayo waa siyaasina wuxuu rabo dhahaa qofku rabo la sheekaystaa hadduu rabo qabiilo kala dilaa isku laaya waayo dantiisu ka dhaxarkaya siyaasadiisa noloshiisu ka dhaxarkaya siyaasadiisa qabiil iyo waxaasna deenin matala maahan waa nin siyaasi laakiin dadkan waa fulaadkii iyo dhaqankii iyo isimadii ogaadeen marka waliba labada ogaas waxaan leeyahay raali gelin bixiya meesha siyaasadda la isku hayaa qaabka noocaana looma wada hadlayn qaabka noocaana ma garanaysaa hadal la isma lahayn qaabka noocaana ma garanaysaa la isku guma jawaabayn ismadii ma jirta kuwa jooga meesha la yiraahdo Puntland wali ma ka maqasho isimta soo fariistay yiraahdo saas hadalada noocaas amaba xataa deelqaaf geysta maya haddana saas ay tahay isimkii maanta jooga ee Soomaaliya jooga siyaasi waa dhakan yahay waxaba laga yaabaa kan hadlay inuu soo adeegsado asagu waxaba laga yaabaa kan shaqeynay inuu asagu adeegsado haddana saas ay tahay wuxuu aaminsan yahay shaarka uu ku fadhiyo ummad dhan inuu ugu fadhiyo hadallada noocaas oo kale aysan ka dhici karin erayada noocaas oo kale uusan ku qowli karin ergiisina aysan ahaynba laakiin alla shaydaa ku yaale waxaan maqli jiray meel curadii durdurisay qaalintii maxaad moodaa war meel dhaqankii guud ee ma garanaysaa ogaadeen sidan ay yihiin war kuwii kale maxaa moodaa war alla shaydaa colaad yaa la abuurin war waxa waa siyaasad biri baad fuulaysaa mid kale biri fuulaya mid kale biri fuulaya barta baasha alla shaydaa ku baasha barta war muuqaalkan iga sheer garay meel fiican gaarsiiyay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh